magacay waa Maxamed Maxamuud Axmed horjoogaha ardada Ifo Secondary School waxaan aad ugu faraxsanahay ardadii ka baxday xiriyaha qaxootiga ee ka soo jawaabay baaqna gaarsiiyay caalamka ee u sheegay dhibaatooyinka ay qabaan ardada walaalahooda sida tayaxumida macallimiinta buugaag yarida kuraas la'aanta waxaan aad uga mahadcelinayaa Qatar Charity oo ka soo jawaabtay baaqaas oo buugaagna soo gaarsiisay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa safiirka dawladda Qatar oo nagu soo booqday iskuulkeena oo kaliya aanan ku ekaanin wixii intii loo sheegay xafiiskiisa uu kaga soo jawaabay laakiin na soo booqday xilli qoraxdu ay aad u kuleed halkan noogu yimid iyo county governmentiga ayadana aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaana dhammaan hay'adaha caalamka iyo cid kastoo danaynaysa ardadanba aan ka codsanaynaa inay garab istaag buuxa u muujiyaan waxaa muuqata in dawladdoodina ay dayacday oo san dan kalayn sidoo kale hay'adaha caalamkana ay muujiyeen in ay ka daaleen caawinta ardayda wax baranaysa qaxootiga baahi aad u badan aan qabnay waa dareemi kartaa 150 canug oo kalaas ku xareysan oo kaliya haysata 3 buug inay wadaagaan way adagtaa in 3 buug 150 qof ay wadaagaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay buugaagga maanta nololkeena waxaan mahad gaar u soo celinayaa in safiirka Qatar oo noo keenay Qatar Charity oo noo keenay buugaag sida baahidoodana ugu qabnay buugaagga waxaan si jeclaanahay inuu scholarship nala siiyo tan kale tana hay'adda waxaan ku codsan lahaa uuska gaarska inay siiso sidoo kale opportunity ay ku helaan scholarships ay ku helaan ayaan jeclaanahay xaqiiqatan horta haddaynu nahay ardada Ifo Secondary School farxad weyn ayaan ku qabnaa maanta buugta aan helnay inkastoo oon hore ugu baahnayn laakiin wax naga caawiyo aan weynay sida hadda safiirada na soo booqday ama nagu caawiyey waddanka Qatar iyo sidoo kale ajensiyaasha noo imaadeen nagu taageeray buugtan xaqiiqatan haddaynu ardanahay baahida kaliya kuma eka buugta ardaydu baahiyo badan ayay leeyihiin hadda iskuulka aan markii loo fiiriyo arday badan oo waxaa jirta oo dhastiga cariiri ku yahay ama halkii dhaski oo afar arday ku wada fariisanaan ayuu haddana saas tahay ardayaal badan oo iska xanuunsan ama xanuun kale ayaa jira oo hadda u baahan in laftirkooda daaweyn gaar ah loo suubiyo sida hadda ardayinka ma ay problemka qaba ama ardayinka iska suuxa buugta si waan ku faraxsanahay waan noo fiicnaan lahayn noo sii baday hadii nagu filantahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh magacay waa Maxamed Zubair Maxamed waxaan dhigtaa iskuulka ISS Ifo Secondary School maanta waxaan soo gaartay deeq buugaag iyo alaab kale oo dawladda Qatar nagu deeqday zaid ayaan ugu faraxsanahay safiirka Qatar oo soo booqday waxaan leenahay walaalahena dadka maqan naga warahayo dad badan oo waxa jira halkan intay iskuule iyo wax ku dhameeyeen oo qaxootinimo lagu qaaday iyo wiilka walaalkeena ina diiriyo oo deeqdan nagu soo wargeliyo dadka nagu sheegayo waxaan leenahay inta dadka maqan naga warhayso oo meelaha joogo wax leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan haday waxna la soo gaari karaan buugaag la'aan jirto oo meesha halkii galaas waxa lagu fadhiyo ku dhawaad 100 iyo wax ka badan markaan saa awgeed dadka oo naga warhayo meelaha jiro wax leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan deeq waxbarasho waxna la soo gaaraan